لكن هل مدينة الصومالية وقتها مهمة وحويان أدونك هذا ما أنت تشوي يكوهرا والله بقول السنة هرتاد وحل يسكو هيستي أو الوتر تمي وخيرات هنتي ويان global contest for the last 300 years is about resources nothing else marka waxa weeyaan qofka intuusan ku gumaysiga waxa kamid in marka uu hore abject poverty liidagu hoos mariyo oo masaakiin noqotaan marka wax allaale wixii laga rabo laga dhamaysto nimba wuxuu qoray book Ethiopian oo alright professor eba qoray 2002 2003 madani naxasuustan kalamowi al-ittihad ku qoran tahay nin alla ninka Soomaali ah oo magac laha oo dhanba Soomaaliya Djibouti lama bariki arti waxa meesha Djibouti lagu sameeyay kullu wuxuu yiraahday waxa weeyaan asal raac weeyaan waa basically people with connections to terrorism waxaan garanayaa inaan anigu garanayay oo saaxiibaan ahayn oo shanta salaadood aan tukan jirin khamrigooda iska cabi jiray laakiin waxa ka dambiga ay galeen kaliya ay ahayd they are wealthy or they looked wealthy maybe that's the right terminology إلا سامردو أنك هنتيدا أنذا وينك موقتا نك هذا $1,000,000 شيلن هو هايستو أو كينيا مركب هو بطل دوري $10,000 أي تاي حاس كيسن الذهب بقبتام 1000 عام بكون دولي هاي جاري ولا أكثر نبص كوتا مركب نك كستا وحاول كرنا العصان سامردو ولا عكس عط وهذا قرت سما نك بروفيسور كا وهو الاتحاد بيبقى كورنت الاتحاد كي إصلاح شيخ هاتف هو اللي يعيش وقرنيه كل جود مع العمر فاروق اللي انت له ونحرستو دنبو حكدقي أصل راع تيروريست أو انتولرانت تذكر دنبو كدقي مركا وحد فهمتان وحلو دن ليه هي وأذيك إن لقوا بابي خيرات كادنا لا وريجو سيد الله ربنا الله جاهره وهكذا العصر الصومالي هذا أنا عندي شيء كان الله اختيار بان قادنا إياه وضل أنا قاعد أسمجهم لما كان بالي هذا لأنه أردن بقول كيف تضبعات وهذا وحجرت كه ملكم مستعمر كنت إيماني وحياة المسلمين إلا هذا المركز أنا نينكي فورما فايس بريزيدنت كينيا مودي أوري مركو حفلتي ماري خميس بحرينشري يا حسوستين خميس حرينشري نينكا سيتو أوجي ومسلمها سكنا فأبيه nimanka tabeeta iyo dagay tayta iyo giriyaamadan iyo kulli diinta islaamka ay ku jireen Eastern Congo oo dhan muslimiin bay ahayn maxaa lagu gaaleeyay karaani baa la qori ninka markuu aqoon yar leeyahay waxa la oran jiray ma gali kartid iskuulka illa ma lagu baptize gareeyo oo kristaan noqoto maxaa iskuulaadka waxa la han jiray oo lahayno gacanta ku hayeen kanaisti nanaga provincial commission oo han jiray la oran jiray Morris Makhano موريس اسم خانو بقرة وموريس سالم مخانو إلا هذا فيمل كيس هالف بدل ما مسلمس مركي قالان سكول كاسيتو وقصب إنه قفك قالوا النقطة محو كل نقطة إنه كاسيتو أنتو أقوان هلو شقينا يو مشاركين عدة كينا يو أي ريركي وحلنا أيين كان هنغا النقطة كريستان وهنتيها نوكيرو ليه مغشاهد كي تفيت هذا أوبتا بقالا نمت تفيت هذا وقبل إنه يتون ناومي شعبان magaceeda ummi baa la oran jiray markay iskuulka gashay baa laga bedelay oo kristaan laga dhigay Naomi Shacbaan bay ku qortay gadaal bay hadana dib ugu soo noqotay diinta iyadoo qof weena mar dhow hadda 10 sano meelaha laga joogo dharka gaambi xirnaysi hadda ay diinta si fiican maarta ugu soo noqotay muhiimadda aan soo wad markii wadanka uu burburay oo meesha ugu dambaysa la gaaray waxa lagu talagalay inaad xariyaha qaxootiga tagtaan dibadaha la idin wada dhoofiyo kana iska buuxisaan kulligan aad kristaan noqotaan arutiina ay kristaan noqdaan dhulkana saa loola wareegaa lagu talagalay way socon laadahay waxa kale oo islamida iyada aan idin sheegay dhageysto horta ha fogeysanina ummad 10 milyan in dhulkooda la bedeli karo demographic change ay dhici karto diintoodana la bedeli karo ilaa 9 milyan iyo barba Andalus Iberian Peninsula joogeen markii ay dhici jirtay taftiishka ay dhici jirtay oo lala wareegay oo la gaaleeyay waa 9 milyan iyo bar
carab ahoo u dhasheen barkood asal u ahaayeen xijaaz iyo wax kastoo dhanbo dadkiina taariikhda garanaya ilaan Portugal oo dhan diinta maxay ahayd markaa laga haystay Spain iyo Portugal waxaa la isku dhahaa labadooda Iberian Peninsula waa la bedelay dadka ayaga ahaa ayaa intii loo qaaday North America ay u kaceen markii dambe oo discover gareeyeen Christopher Columbus iyo wixii la jiray oo dhan waxaan dad asalkooda islaam ahaa yaa haddana geeyay kristaannimada South America iyo meel kastoo wad garanaysaan marka ninka Soomaaliya ku xisaabtamayo inaadan lagu bedeli karin 15 sano hadda ka dambe hadii la joogo oo 3 milyan oo Ethiopian ay ku soo beeraan Kenyana annagana qaybtaanada aan iska qaado nin kasta maxaa ku hareen ku weydiiyay oo 5 milyan oo laba dhiigle ay soo baxaan 5 milyan oo aabahood iyo hooyadood oo hadaba Abu Musa iyo Abu Abdullah iyo Abu Abdi wixii dhigi jiray oo dhan oo Burundiyaanka iyo Koongreeska inaga dhaleen oo ahaayeen ashabaabti gabdhihii loo dhisay aabahood hadda intee loo raadinaya maxay noqon doonaan markay 500 ku noqdaan wad garanaysaan wad garteen Soomaa marka horta waxaad ku tala gashaan khayraadka lagala dagaalamay ninkan waxa loola dagaalamay wax kale ma aha hanti uu yeeshay isbedel baa dhacay dadkii la rabay xariiqa qaxootiga inay galaan kanaaysta inay la kala wareegaan caruurtooda in la aruursado tiiba socon weydi marka qasab waxa weeyaan in la yiraahdo wax kasta lagu dayaa xawaalada joojiya inta ka fura Soomaalidana waxay iska noqdeen dad iska firfircoon oo inkastoo sidoo hore hadda ay dhaheen maanta waxaan idin sheegi Ingiriiska wuxuu la dagaalamay China in the 17th or 18th century the Opium War 18th century waxaa la dhahaa dagaalkii opiumka Soomaaliya waxa lagu dhahaa opiumka oo mukhadaraadka la bahalkan bangiga ma garanaysa xashiishka ha marka Chinaha waa laga xoog badnaa waxa la waa qasab inaad ku gaataan xashiish oo cabtaan oo lagu laayay warsama garanaysan midaayada Ingiriiska intuu keenay xashiish buu u keenay Chinaha oo yiri waan ku laan hadii kale iibsada opium war baa la dhahaa is a trade war basically khayraadkooda inuu qaato iyagana ay baabaan sida madowga Mareykanka iyo maxaa la nimankii native Indians native Indians lagu sameeyo oo dhanba intii meel loo hagaajiyay reservations khabrina lagu baabiyo خلاص ay iska baabaan iska tirtirmaan way dhici waxa laga dagaalamayaa aqoonta laga dagaalamayaa independence that aggressive independence maxay say ku heleen 10 milyan oo dad aan oo 15 markay u badan yihiin dhul intan leeg inay helaan oo bad intan leeg inay helaan oo wixii oo dhan ba adduunka baa isbedelay haddana waa in la isla qabsadaa waayo waxa ku daliil ah waxa la yiri magac xun si marka kadib dil give a dog a bad name and then kill it markii la qabsanayo la laaynayo oo genocide-ka lagu sameeyay American Holocaust la yiraahdo dadkii loogu tagay xagga Mayans iyo Aztecs iyo Native Indians lagu laynay waxyaabaha ay ku oran jireen Ingiriiska iyo dadkii meesha tagay oo cadaankii tagay waa bestials magaranaysa macnaheeda bestial waxa weeyaan ragga u taga ee waxaan ka soo kale la mid yihiin sida xayawaanka oo kale u dhaqdaan bay dhihi jireen oo dadkooda lagaga helay justification-kii loo laan lahaa ilaahay baan nafaray kuwan oo kale inaan ka tirtirno si fooy ummad fiican uga soo baxday dhihi jireen iyagoo markaa diinta Kirishtaanka maxay ahayd hagraacayaan yaa aha bestial maanta qofka ku dagaalamay qasab ragga in la isku dhisay kala macaawadan ka goso iyaga ma maanta maxaa lagu dilahayaa gabdhahan hay isguursaan Allah hadlina raggan hay isguursaan Allah hadlina Soomaa taas lagu haysta hadda adduunka saddexaad oo dhan baleelay waa inay qasabad saas sameeyaan marka wax aan lagu dayeyn ma jirto Soomaaliya mid baan idin sheegay dhageysta haday markaan meesha soo socday baa qof ma ila hadlo wuxuu yiri warniyo xogaa annagana waan ka yar cabsanaynaa bal xabashida iyo Mareykanka waxa ka sheegin kowdi waxaan iri waxa iyaga aan kala cabsan weeyay kala cabsanayo toosama ayagii waxaan kala cabsan weeyay la Mareykanka wax ka qowdweyn ma jireen idageysta waxaan bixiyay speech dheer baan bixiyay mar hadda laga joogo 12 sano oo iri disintegration of state and society was Soomaaliya horta waxaan lagu sameeyay wax hadda anaga ugu gubnaa ma aha dad badan baa horta lagu sameeyay disintegration of state and society was Soomaaliya lagu sameeyay hakala jabaan qoys qabiil caa'ilad fariiqa maxay ahayd madhab wax kasta ba noqdaan
markaasaa balkanization lagu sameyn tuula lagu hagaajin oo la oranaya idinka is xukuma marka ugu dambeysana dissolution baa lagu sameynaya oo lagu laqaya gebigaada oo dhan waxaan u malaynayaa the script is going on exactly the way we saw it from the beginning. Iraq meel ka dhib badnaa ma jirin 600,000 oo ciidan oo bacthi oo Saddam Hussein uu haystay baa jirtay Mareykanka uu tagay uu burburiyay xoog buu ku qabsaday ciidankoodii buu u hagaajiyay u dhisay ciidankoodii yuu hagaajiyay asna uu ka soo baxay yar waa dhamaytir hay hadda Afghanistan meel ka dhib badan ma lahayn Asiatic interior ciidamo keena sidii ma la dhihin peacekeeping or permanent lagu sameeyay lama dhihin waxa loo hagaajiyay their own security machinery yaa ka hadlaya maanta Soomaaliya in loo hagaajiyo security machinery iyaga ay leedahay oo maaragtay wadankii oo sugayo oo wadankii hagaajinayo oo maaragtay maxay ahayd iyagii ay la wareegayaan they take charge of their own affairs maalinka ka dambaysa al-shabaab meesha uma joogto ummadda Soomaaliyeed wiilasha yararka ahna maskaxda laga siray iyo inay kamid yihiin iyo in lagu adeeganayo in ajnabi ku dhex jiraan inta way isku jirtaa waxay u joogaan interestiga cadawga Soomaaliyeed haddii la tirtira maanta ma tirtirayaan iyagaa beerayaan they created themselves ma rabaan inay tirtiraan waa gabdhay wiilal yaryar weeyaan 2,000 3,000 waxaa lagu tirtiri karaa in less than a month they wouldn't do that it gives them the justification for them to be involved in your affairs on a permanent basis waxaa weeyaan anigu nala jiraa Ethiopia anagay saaxiib nala tahay Kenya anagay saaxiib nala tahay hebel anigu ceenka nala yahay haddaan nahay daarood haddaan nahay hawiyo haddaan nahay dir haddaan nahay qolba qoys sheego kulligan waa lidigu adeeganaya one script wiilal yaryar oo yaa sheekada iska wadaan oo maantana kuwana kor loo qaadi 4 maalmood waxaa weeyaan Puntland baa garab la siini markay waxoogaa joogto waxaadana 4 maalmood kale Somaliland baa garab la siini 5 maalmood nin xamar jooga ayaa ma arsaba tagi oo inta si warwareegi 5 kale ku kala lagu hagaajin kismay haddana kiimaan mar waxa dila joog maxay ahayd digil imirfle iyo baydhabo iyo meelahaas shariifka loo yeeri aabihim baad fuudka la cabaysan awgeena waa lagu gubi dhageystaan idin sheegay يرى هذا وان ير ايو قفتي واسكيل على بريها اللغه داسكو إذا جايست ما كلا تشعله دارود إيه در إيه هوية إيه إساق إيه ننكست وحي كلا تشعلين مالها كل جنس ومالي باتين دل كان اللود اللي مركان ننكست هذا الشاكي أركو حساب تمو waxaa ku fiican hadda adii xaaskaada haday muran inaga dhaxeeyo oo cadow dibadda oo ka imaado maxaad sameyn hortaan heshiinay ilaa macaanka Soomaa xamar dadka jooga oo magaca qaranka maanta wato haw tagaan walaalahood gobolada meel kasta oo dhanba jooga maxaa maskaxda ka balaaran kuwan gobolka jooga iyaga lagu xisaabaya nimaqlaysa halkay laakiin iyaga haday noqdaan Addis Ababa looga yeero oo kii looga yeeray Jubaland iyo kii Somaliland iyo kii Puntland ee isgarab socdaan iyo kii qaran ka socday oo midba maalin inta loo sheekay la oran dhabarka inta xagga u kac maxay noqonaysaa marka waxaanayto waxa loo baahan yahay in si fiican oo dhaba loogu xisaabtamo anaga faarax diyaanahay haday noqotay in al-shabaab afartu bari inta garab la siiyay Soomaalida laga saaro meesha diyaar baan wahay afartu bari way dhaaftay sanad ka badan ay noqotay ma ahaan waxaan mareynaa hadda sanadkii saddexaad Soomaa 2 sano ma dhamaatay isku dhawday 2 sano dhamaatay hadda wixii ka dambeeyay ciidan ka soo baxan leena Kenya ha ka soo baxan hadda wixii ka dambeeyo hadii kala hatusaan road map بوليسنا كنت وبرنا ملتري أنا كنت وبرنا وهم بنسمينا وان ترترنا يجنا تلابد اللي قاعد لها أنت اللي قلت تجيب أفبدو ولا فريست سنة كاملة أنت وجدتك اسمها أفبدو ويبعررها ويلش مالك في جه تدور بري وحكونا مال الله وسنة اللي قلنا من حتى وحالة تجي ماشي ولا ضافي أنت بدك إحنا ولا ضافي مدينا ولا ضافي بو علي وحيد شوغان مرة سمعت شوغان إيه وحلا متك أنت أصلا بوالد داي حقا لو كادين هسو حوكسان انت هسعودان maxaade in meeshii lagu jiraa la rabaa imaqlaysan halkay imaqlaysan
marka ii garab ii noqo shaqada la dhamay laakiin aw ninka la xisaabtami laha shalay okay garab baad ii noqotay maanta where is the road map I want to see a road map ilaahay niyadii qalbiga kaama qaadin cududiyaadan haysanin magacii baad haystaa qaranka dadkaada hagaajisa horta hore kulli caloosha soo gasho oo nin kasta tanasulaad u samee oo nin kasta soo xabiibso kii gobolada ku jooga wuxuu oranayaa war haddaan damco waxoogaa qarannimo inaan u dhaqdo ma loo eedoobi karaa nimankan xamar joogo oo hawiyo oo shilinka un raadsanayaan wax kale aan raadsanayn hadda been maaha maba doonayaan dowladnimo waxay doonayaan inay dekada maartay waxyaabaha kismaayaha hatay waxay u rabaan wax kale ma dekadii airportkeeda hana loo dhiibo wax kale ma rabaan shilimaadkan bay u dan leeyihin intaasuu ku oranaya kii xagga joogay kii kor haddaa u tahay siisa lamid ah markaa nimanka xamar joogo soomaalinimada dhabta oo ka ballaaran waxaan oo dhan oo dadkan oo dhanba lagu soo kasban karo waa in iyaga ay sameeyaan sida ugu degdegsan ay ku dhaqaanaan oo loo kala turjubaanin maxay ku noqotay in labadooda intii la iskugu yeero meel in loo kala turjubaano oo midna la dhaha wariyaa edab yaala wiil yaroo gabriel dhaha u kala tilaabaan maqla kulligood hataa nin weyn looma soo diro wariyaadna meesha firiis wariyaadna meesha firiis waa yahay raalli buu ka yahay aw qabkii soomaaliyeed war aw qabkii away intuu gala qabkii aw qabkii soomaaliyeed mid yaro aniga ilmaadeernahayna waa la hagaajiyo hadda maartay gobolkii soomaalida ee asagan alxaal yiri ku dhex darsan waxaad garaaci kartana garaac shaqadan ku dirnana soo qabo war soo run ma alaga la jiraan waxa taaladii ay nimankii wiilashii maxay ahayd ay jajabiyeen oo Said Maxamed Cabdulla Xasan jigjigaana looga hagaajiyay soo sama war wiilasha afar wiil oo ngaaji u geysay bay ahayn wax kale oo dhib u geystay malaha markaa iyada oo maxay dhibkay geysatay maxay tahay jingada maartay ku taalay guriyaha dawladda soo iyagana saa looma goosan laakiin waa walaalka waa Soomaali waxayna isu samraan loo baahan yahay oo xisaabta dhaba intii la sameeyanka laakiin marka la leeyahay Said Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo wiilwaal wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo حاوتاك waxay noqotay Ethiopian oo loo hagaajiyay taalo looga hagaajiyay waxa lagu leeyahay Axmed Gurey Maxamed Siyaad Baraan kulli ku soo dareen liiska hormalayna mardhow markii saal lagu leeyahay waxa lagu leeyahay qaran matihida qabiil anaga iga tirsan baad waliga aheed ana ku xukumi intaba ma hayn lagu hiri ana iga tirsaneed weeyaan hayla salaas ba oran jiray manalq ba oran jiray this is a Bedouin tribes or Somali or part of the Ethiopian empire. They can be the way. What could you ask? According to them, when the Quran is saying, "Sifai and ta'udin, hello behind high in hisab double lagalo." Well, either whether Irin, well, willow waregi, man do it to Marba Hani, had dim day and choked. Don't become hard and what think. I know Malantan cut off is Somalia with the head. Is Somaliland with the head. يا رجلتا أو نلعب بقولوا كيلومتر سعودي هذا ضدكم أركي ماشي قال ما كواركي يعني ولا بقول لك قاون نعيهم كواركي ما لو هن كواركي ضد ما كواركي ضد ما أركي ضد قال كعيك تقول لا قروا كتك هذا تولين يرى مثلا خلاص صعد بل أنت نيروبي كبح وحتى إلا صدق كيلومتر لما مليون وقف بالمري سوالي ودنا بحكوها 2 مليون مدن وهنعيها كاتشرة بقول لي كنت مليون أو مارتي أو جيرانه والله لقي سفوض بالله لقي مركب الحساب تنك هلا سمي علماء هذا الشو وشيخ السوهد وهد لهي أسوأ الشباب هاني وهد لين محيهد ولا ما كان وهد لين اتحاد يوحاك الوهد لين لكن سياسة الصومالي هو الشيء وهذا وركك عفدك دل ولا عبصة مركب يا هل سويدني وعن ذي شيء هاد بدور اللي هاني إنسان شيخا وانا قانا نيجا سوون حتى باللابين حويلاد مركي ugu horeeysan baarlamaanka wax yar Sacuudiga ka shaqeynayo 92 had baan jeclay 93 waxaan mooyee yaan isbarnay soo maartay 92 baarlamaanka soo gashay ha markaan soo gali ya ka horeeyay baarlamaanka soo gali markuu sheekhu bilaw xaalad gormeeyay okay aniga 92 baan meelahaas ku arkay soo carabta jooga khayr allah siya waan aan isnaqaano badanna aan wada kulanay wixii yarada buuq iyo qayli aan sameyn karnayna aniga qaylida aad baan ugu dhex jiray oo dhowr meelood baan maartay aan wadamaha jiraanka hata madaxweynaha u tagay war ninkan waa the only
social security ga Soomaaliya ay leedahay social net waayo ATM ka waxay bilaawday last 10 years sama how old is ATM right now in the not more than 10 years about 2002 by Europe ka bilaawday Mareykanka galbeed ka bilaawday anaga ATM buu noo ahaa from the time he started 10 sano horteed buu Soomaalida ATM u ahaa oo maxay ahayd intii mar la soo diro la oranayo meesha ka qaado telefoon ummadda Soomaalida runtii xawaalad hadeeyeen way baabi'een aad bay u dhumirtay ilaahay baa noo keenay waxyaabaha ilaahay uu maaratay uu nagu badbaadiyay ayay kamid tahay asagana waa nin xalaal ah anigaan faarax oo kula hadlayaa hadda koor waxay leeyahay al-shabaab waxay leedahay gaalka kurka ka soo gooyay safiirka waa ka uu joogaa intii qori madax laga qabtay bay Itoobiyaanka qor dheheen warqad ay leeyahay faarax waa al-shabaab uu qoray warqadii maxaa على أمريكا marka waxaanayto waa ummadda lagu baabi'inaya ama wax jira maaha meeshay jirtay waan garanaynaa meeshay jirtay uma doonanayaan kuma tirtireen meeshay jirtay ana marka la yiraahdo diyaarad baa dul maray iyo ciidan baa imaaday meesha bahalka Mareykan oo xabaday rideeno waxaan u maleeynaa intay imaadaan bay xabado u keenaan inay wali hub u keenaan baan u maleyn amri ilaahay mooyee ya ha hub iyo waxay u keenaan lacag waxay daan hawsha sii wada بعد عيدا Mareykan oo Marines meel intay soo galeen ay sameeyaan surveillance kii satellite kii diyaaradii drones kii wax kasta oo dhanbo oo lagu leeyahay xabada inta lagu riday baa dib baa loo celi waa la waabiyay oo sodan wiil baa waabisay oo AK47 haysata xaba kama jiro wax baa loo keenay anaga sheekada waa in hoos loo sii bara marka waxaan idin sheegayaa Soomaali khatar baan ku jirnaa hadday noqoto dad la bedeli kara jiilkiisa iyo nidaamkiisa oo dhanba Andalus ku bahalkay ku cilmi qaata ana arko ku soo wareegay Spain baan ku soo wareegay bigeeda waxa naxdinta ugu weyn leh markaan tagay masaajid Toledo ku yaalay oo hadda masaajid ka weyn baan aniga arkay oo meeshiisa ku qoran tahay maxay oo anna al-masaajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan oo inta Muhammad maxay ahad Allah nabi waxa dhanba ku qoran tahay ku qornaa oo laakiin sidiis loo daayay oo macaabid taabkay oo kaniisada the hundreds of them like that boqolaal baa jirta aynkaas oo kale marka waxaan idin sheegi xafudaysanina intiina ay tawjiil baad tihiin 30 sano hadda ka dambe mise 40 sano wax yar baa ka noolaan wali shaqadeedu intaanada kala dhan baan u tagnaa isaas yeelata waa aba si socnaa hadda marka aan kaga tagna wax dhaxalgal ah nin kasta umadiisa wuxuu u horaa naftiisa wuxuu u horaa xoogiisa wuxuu u horaa aqligiisa warniga wuxuu aniga hadii sheekh baan ahay oo hadii aan wax sidaan u hadlo lima badbaadinayo waliga soo dabadooni ma hada saa tiraahdo waxaad ka tagaysaa waa wax jira maaha taariikhda ma hadana saa ka geliysaan marka intaas aan idin sheegay billahi tawfiiq ninkana khayr Allah siiyo waxaan ku soo dhaweyneynaa oo waliba aan jeclahay inuu intii maado bangi ka furay Nairobi ya bangi baa jira hadda إنه صديار ما إنه نغفر بنجي أنت يا وأكون وين أنا بنجي نغفره جارس كفره وجار كفره منديرا كفره سنة تركيا وجوجا إلاس برشيل أو هدين سياسي أو عان أو ما الله هدنا معي عد كيس جو سنة وجوجا عباس باتشوجا وجوبه عرطميو وأنا أركض دون وجوب نيس وحي كانت سجنا أنا ولي الكي أنا صفي عن اللي جسيبين باتشوجا هلاي روح رمي عيه يوسف حسن باتشوجا وخير الله هسيه آدي أنا قوم في عنا له وحبذنا أسجوك اللي يوسف هلجن كمركب بالله بي أنا قاعد أقولي سيدت ميدي بالله يوسف أو مارتي كينيا هلجن كذي ما أنت أنا مال هالبولة هيو وما أنا أنت كويل على هيو مركا ولا ودي شوي ننكي شيخ وحاطر هذا كاري إنه ما وكسود ويننا إن شاء الله بالله توفيق